بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka telefishinka bulsho oo idinkaga imanaya stuudiyaha dhexe ee TV-ga ku leeyahay magaalada Hargeysa hadii Allah wada loo ogolaadana warka waxa idin socodsiin doona anigoo Maxamed Daaq Ismaaciil Xaashi qodobada aad wararka ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa golaha wakiilada u gudbiyay labada xubnood ee komishanka doorashooyinka ku metelayay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa eedeymo u jeediyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa booqday isbitaalka guud ee magaalada Burco madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa dalka Turkiga ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waatahay daawadayaal kuwaasi waxay hayaan qodobada ugu doorka roon wararkayaga imikana u diyaar garooba wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan